الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد سورة البقرة أيين التفسير كذا كل حجرني آيات الشريعة اللوات قال الله تعالى إلهي وحول وبشر وحد نبي محمد وبشاريساه الذين آمنوا ضدك إلهي رميي وعملوا الصالحات عمل هذا ونكسرنا السميي أن الله من إليه نجوب الشارع جنات بيرة جنة كويا له تجري من تحتها الأنهار واستأذن وبيد أيصداء وقلقليا وبيد لا يقاني كلما رزقوا منها مركز طاء لجر راشمه أما عنا لجسية جنة من ثمرة من الله سيه رزقا إياه أرساقد أيوتها نفسنا قالوا وحيليهن هذا كان إمكان لسيي الذي رزقنا من قبل وكي إمك كهرنا لسيي وقت كهر با كان لسيي إمكان لسيي وأتوا به بولهاي الوالسية متشابها نسقوا يسوء أجاج وحي هذا الكاوي هذين وحن لسية با اسكو وضع أجاج ولهم وحي كليهن أهل جنها فيها جنة دحريرة أزواج حاصص مظهرة للنظيفيين وهم ذاتك جنة كترا فيها جنة سي خالدون كواريا اللهم اجعلنا من أهلها وحي نكدوا عايشتنا إن أهل كذا إنه الله ينقدقه بشارة وحوية وحونا أكسن وقفك الله شاء وكفر حية فرحتك ويننا ما تشرتو قفك مؤمن كأولياء إلهي كم إذا إن لو بشارية كانوا وحنا القرآن كنا بريا ضدك إنه هذه يشير لأوجانه وحي كفر حنايا وأين كدينا وحي كن حنايا الله وحده وقولوا للناس حسنا ضدك هذا الكون أكسن أولها كلمة في عنين صدقتها أي النبي محمد صلى الله عليه وسلم هل كأنك لقيا وضدك الصومالي ده نقن كودو مرار بدن كنحنتا يدعى يدا إنه النوضة مركي ضدك إسواجهان نقن كي رسولك صلى الله عليه وسلم الصحابة دي سنة وحيهاين قفك مركا وح خير لوصا كرله إلا كالبرة تمسدي لوجو بشارين لها قرآن كنا تاسو إن بريا jannadu waa meel qaaliya weeye aad u qiimo badan waxaana lagu helaa sida Ilaahay uu sheegay iimaan iyo amal wanaagsan iimaan dhabaho Ilaahay la rumeeyay oo sharciga waafaqsan oo ki aayaadka hore ay ka soo dayriyeen aan ahayn amalkuna wuxuu saalix noqon karaa markuu waafaqsan yahay sunnadii nabiga calayhi salaatu wasalaam daacadnimana ay ku jirto daacadnimadu munaafiqnimada ay ka fogeynaysa diinta la waafajiyaana bidcada ay ka fogeynaysa jannooyinka had iyo jeer quraanku wuxuu aad u tilmaamaa oo lixdameeye meelood ku soo noqnoqonaya ereyga jannadaas oo markaa Ilaahay uu sheego wabiyada iyo dharka iyo dooniga iyo midhaha lagu hayo taasina waxay ka faa'iido tahay waa jeclaysiin tarqiib baa la yiraahdaa jeclaysiin weeyo qofka bani aadamka ah wuxuu u samaysan yahay wax wanaagsan oo qiimo badan marka la jeclaysiyo loo sharxo inuu had iyo jeer u cishqiyo oo u hanqal taago oo u hawl galo wax khatar ah ku soo fool marka looga waramana de inuu ka feejignaado ka dido oo dib uga joogsado waana sababta naarta iyo balaayooyinkeeda quraanku uu inoogu sheegay ahlu jannuhu midhaha jannada yaala
xagga tayada ma kala dhacaan xagga muuqaalkana way siman yihiin iyadoo laga yaabo dhadhanka inay ku kala duwan yihiin halka inagu aynu aragna midhahan adduunyada qaar way foolxun yihiin qaar way rifrifan yihiin qaar araggaaba diidaya marka kuwii hore la siiyey kuwa dambe iyadoo laga yaabo inay xagga dhadhanka ku kala duwan yihiin xagga muuqaalka way ka siman yihiin kullamaa rusiquu minha min thamara mar kasta oo jannada waxa la siinaya u badan yahay kullamaa waxay tilmaamaysaa waa tikraar bay faa'iidaysaa soo noqnoqon raashinku ma kala go-ayo laa maqduucatin walaa mamnuuca deeqda meesha lagu hayo cunno leh ee cabitaan leh ee midho leh way isdaba taagantay kullamaa hal meeshan busaaradda ah ee lagu leeyahay mar safarkiibaa go-ay mar hebel baaba kuu diidayba mar adigaaba waayey waxaa ma laha mar kastoo midho la siiyo waxay leeyihin hada aladii rusiqnaa min qabl kani waa kii markii hore la siiyey ma kala dhacaan dhadhankii laakiin markay arkaan bay garanayaan ilaahayna waa kaa yidhi wuu isu wadeegay xagga muuqaalka waxa ilaahay uu raaciyey xaasisbayn le in la nadiifiyey waanay ku waarayaan waxaa halkaa lagu hayaa waxaan halkan lagu hayn dadku markay adduunyadan joogaan waxay la waasheen labadaa afka iyo ibta maxaad la heshaa unbaa lagu dagaalamaya afkaa maxaad la heshaa ibtaase maxaad la heshaa labadaasoo miir qaba oo laga dhargay halkaasaa lagu hayaa wax alla waxaa xarbu tadaafuc adduunyada maraya ee la dagaalamayo la is-eryanayo wixii la cunayay iyo wixii la cabayay iyo wixii xaas laga dhiganayay ama lagu hamadbaxayay baa loo howlgalaya halkaasa haddaba lagu hayaa halkan tani ma xidhiidhsano oo surma seegtada ku badan iyo isa seegseege waxa lagu hayaa halkaa wixii la cunayay wixii la cabayay iyo raaxadii rag iyo dumarba waana labada uu nebigu ka digay calayhi salaatu wasalaam in xaaraan lagu isticmaalo yaa ii ballan qaadaya buu inuu afkiisa ilaaliyo iyo ibtiisa hoosoo xaaraan uu ka ilaaliyo aniguna jannadaan u ballan qaadaa kaadhkeedaan diyaaru laha rasuulku saasuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam marka waa lagama maarmaan qofka muslimka ahi afkiisa iyo iibtiisa iyo uurkiisa inuu xaaraan ka ilaaliyo si uu deeqdan ilaahay joogtada u helo waxa iyaduna si cajiiba inaad intaaba wax la hesho labadaada afka sare iyo ka hoose intooda wax la hesho inaad weligaaba ku hayso oo aanu kaa kala go-in wahum fiiha khaaliduun dee waxay yihiin maxay wahum fiiha khaaliduun way ku waarayaan khuluudkuna wax cajiiba wey waynu arki doonaaye ibliis markuu degayey ama suldaarayey ama khiyaameynayay nebi aadam halkuu ka soo galay waxay ahayd hal adulluka calaa shajarati اlkhuldi wa mulkin laa yabla ma ku tusiya aadamow wax la iska yeelanayo weligiioo adduuna macnaha deeq ilaahay oo la helayo oo haddana aan laga dhimanayn marka halkaa intaasaa isku hagaagsan sidaasuu qur'aanka kariimka ilaahay inoogu bushaareeyey subxaana wa tacaala ooriyaha waxaa halkan alle uu ku sifeeyey inay yihiin kuwo mudahara la nadiifiyey marka daahiran wa baatinan xagga muuqaalkana waa ka nadiif xagga macnawiyaadka iyo baatinka hoosena waa ka nadiif adduunyada waxaa la ogsoon yahay waxyaabo badan oo rag iyo dumarba hawl ku haya inay jiraanoo fudalaadahoo dheeraada saxaradii kaadidii wixii la odhan jiray dhalmada dhiiggii ilaa culimada qaarkood in badanoo ka mida waxay ku tegayaan xataa biyihii taranka iyo wixii la socsocon jiray midna ma jiro biyahan taranka uga dee waxay u iman jireen in dadku tarmo dee cidiba tarmi mayso qof waliba halkiisuu la soo jiifaa ku taagan yihi sidaa daraaddeed biyihii taranka iyana ma jiraanba fudalaadka dheeraadka lahaaba iyaga qudhigoodu ka mid yihin qofku raaxadiisiina sidii buu helaya baatinkiina dumarkii waa ka nadiif weeye oo markaa dee aan idhaahdo murankii iyo xaggii akhlaaqiyaadka iyo wixii oo dhan waa dad ka nadiif ahoo qof keliya ayuunbay ka dhigayn ahlujannuun qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu uhi ina allaha ilaahay laa yastaxii kama xishoodo an yadriba inuu dad yahow idiin yeelo maalan maa tusaale kastuu doonaya ilaahay wuu idiin samaynaya bacuudatan kanaacuu tusaale ka dhigaya famaa fowqahaa iyo wixii ka sarreeya faama aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyey ee alla yaqaanka ahaa fayaclamuuna waxay garanayaan annahu tusaalahaas alxaqu min rabbihi xaq inuu yahay ilaahooda xaggiisa ka yimi wa ama aladiina kafaruu kuwii gaaloobayna fayaquuluuna waxay odhanayaan maadaa araada allah ilaahay muxuu ula jeedaa bihaadaa tusaalahan
مثلا tusaale ahaan muxuu ilaahay kan tusaale uga dhigay kaneecadan iyo wixii la mid ah yudillu bihi kathiiran in badan ilaahay wuxuu ku luminayaa oo dadka ka mida tusaalaha wayahdi bihi kathiiran in badanina ilaahay wuu ku hanuuninayaayoo dee qofkii rumeeyaana wuu ku hanuunay kii dafiree diidee ka soo horjeedsadaana wuu ku hallaabay wamaa yudillu bihi ilaahay kuma luminaya ila alfaasiqiin kuwa alla ka fogaaday ee ilaahay diiday ayuunbaa sabab u noqonayaa tusaalahan inay ku gaaloobaan marka halkan waxaynu ka arkaynaa ilaahay baa wuxuu inoo cadaynayaa subxaana wa tacaala khalqiga adduunyadan ku nool kitaabkii loogu talagalay loo soo dejiyey rasuulkiina loo soo diray sala allahu calayhi wasalam inay yihiin qaar kala duwan way kala duwan yihiin dadku ma sinna way kala dhaqaaqeen qolo ilaahay wixii xaggiisa ka yimaada waxay og yihiin inuu caqligana u kordhinayo cilmigana u kordhinayo maslaxadoodii iyo dantoodana yahay mar walba way ku qanacsan yihiinoo way rumaynayaan qolana dee iblis baa ka dhex hadlaya iblis oo aynu arki doonno taariikhdiisa iyo howlgalku ku haya ilmo bani aadam ayaa jihaynaya oo hagayo ilaahay seejiyey wixii ilaahay ka yimaada xaggiisa kuma kalsoona way diidayin qur-aanku markaa wuxuu mar walba inoola taagan yahay shayga qiimaynta la idhaah oo dadku adduunyadan intay joogaan waxay mudan yihiin inaanay isku walaaqanaanin oo aanay ishuwanaanine dee ay qiimayn yeeshaan qiimayntaasay ku kala tegayaanna abaalmarinta aakhiro marka amhaasha iyo tusaalayaasha waa inagii soo aragnay iyo miisaanka iyo faa'iidada ay ku leeyihin qur-aanka dhexdiisa tusaalahanina 9kii tusaale suuraddan suuratulbaqara ay bixinaysay kii saddexaad weeye laba hore aynu usoo marno munaafiqiinta lahaa qur-aanku markaa xayawaanada sidaynu xusi doonno qaar badan baa qur-aanka dhexdiisa ilaahay xayawaanka u abuuray ku xusaa nimankii gaaleed markay doonayeen inay duraan qur-aanka ama wax ka sheegaan waxay yidhaahdeen kitaabkani hadduu yahay mid ilaahay xaggiisa ka yimi ila ilaahay waa mid wanaagsan waa mid aan cidila mid ahayne muxuu qur-aanka dhexdiisa tusaale ugu soo qaadanayaa kaneecada iyo duqsiga iyo quraanjada iyo xayawaanada yaryar waxana waa xayawaano yaryar xasharaada waa waxaan macno lahayn maxaa hadduu kitaabkan ilaahay xaggiisa ka yimi waxaa yaryarka ah loogu sheegay ee dadkuba aanu jeclayn uu karaahaysto allaba wuxuu xusay subxaanahu wa tacaala halkan tusaalahani inuu yahay mid ilaahay xikmaddiisa uga jeedo ilaahayna aanu ka xishoonayn oo siduuga uga xishooda dee waabu abuuraydee mar hadduu abuurayba xikmadda uga jeedo siduu uga xishoodaa rab sirta ku jirta maroodiga ee nolosha ah ayuunbaa ku jirta kaneecadan ah waa sirulxayaa sirta nolosha taasay ka siman yihiin marka sifooyinka ilaahay uu leeyahay waxaa ka mid ah sifada xishoodka ina allaha xayiyun kariim nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi xadiidkii saxiixa ah ilaahay waa mid deeq badan oo xishooda oo addoonkiisu hadduu gacmaha kor u taagu ducaystuu baryo ilaahay wuxuu ka xishoodaa inuu ku soo celiyo gacmihii oo maran kolle wuxuunbuu ugu soo ridi marka sifaadka ilaahay bay ka mid tahay inuu maaragtay yahay mid xayiyo xishoonaya laakiin xishoodkaasi baa ka duwan keennu waa mid qajilaad iyo qabandhacya ku jirto iyo si noqosho ilaahay ma laha subxaana wa tacaala kaasoo waa inaga duwan yahay مثلا ما بعوضة فما فوقها تصاله دون أي سمينا يا كناعة يوحي كسيوينا أما كناعة يوحي كسير كناعة تصاله كذا يساعي بشجعان وانو كيرين كرا تذكي قالوا وحي وقاعدين وتصالها نحق يويرهم بين ومؤمنين قالوا نوا كون كهري مدوا قالوا ويكو قالوا بين لكن قرآن كوحي وشجع قفك قاطع أوه قان سماوه هنوري وما يضل به إلا الفاسقين قفك الديدة وحيقة إياه وحوشة وفاسق إلهي بكفو قاعد بهاشتان الله إذا هذا كان عادة يعني من كاس أي حقيرين إلى هذا القرآن كالحديث محال الله وشة لها عجائب وحي لها عجائب عجائب كذا إنه وحكا سوق هذا أنا ما وحكا حسنانا عجائب كإمك الله أركي مركي دي دراسة لها السمية قلب كان horumarsan ee mijarada iyo microscope-yada la isticmaalay waxay taasi daliil u tahay icjaaskii xalayto aynu ka soo warabaynay ama mucjisnimadii quraanka
loo yaqaan al-i'jaaz al-ilmi i'jaazka la xidhiidha xagga cilmiga iyo horumarka quraanku ka sii waramay bani aadamku gadaal ama hadda ay arkeen kaneecadu iyadoo ah xayawaanka yar ee sidaa u yar haddana waxa la ogsoon yahay inay bani aadamkaba ka xoog badan tahayba oo marka u horeysa ay weerar inagu hayso hay'adda caafimaadka adduunka ee munadamatu sixa alcaalamiya waxay soo saaraan sanadkiiba bani aadamka inta ka dhimatay iyo dilkiisa waxa u sababaha maxaa basharkii adduunyadan ku noolaa 7 bilyan kor u dhaafay imise qof baa dhintay maxaa sabab u ah si bal caafimaadka loo horumariyo oo dib loo eego waxaan u malaynayaa 2014 meelaha in ahayd taqriiban daraasadii ka dambeeyay ma haynee ayaa waxay soo saareen in tirada dadka ka dhimatay ay kaneecadu ka dishay 750 kun oo qof balka sheekee adduunyadan dadka ku nool kaneecadu waxay dishay xayawaanada adduunyada wax dila number 1 kaneecada noqotay xayawaanka adduunyadan basharka dilay ee khatarta ku haya kaneecada yar ee la yiri maxaa tusaalaha loogu soo qaatay dad caariday ayaa ka noqotay 750 kun oo qof bay dishay halka bani aadamku dilka iyagu istilayaan uu noqday 437 kun oo qof waa khatartay dadku isku hayeen dadkan caalamka ee hubka sitay ee adarkaysa leedahay kuwa waxba iska gama harin inta kaneecadu dishay ayaa ku soo laabmaysaba way sii wadeenoo waxay yiraahdeen bahalaha aad looga cabsado sida tacaabiinta oo kale maska iyo abeesada iyo sunta badan iyagu 100 kun oo qof bay bashar ka dileen sanadka aydan khatarta badan ee miciyaha waaweyn ilaa 35 kun oo qof bay dadka ka dileen tamaasiixda bahalka u ilka weyn wuxuu ilaahay abuuray ee ugu khatar badan waa baalkan yaxaaska la yiraahdo kun qof baabu ka dilay weeyna sanadka marka halka maxaad ka aragtay baashii la xaqirayay oo lalaha weyn bay yadaaba haysaba khatarta weyn ta waxdisha waa dhadiga bayna iyaba waa cajaay dhiiga dadka ka muudsata oo inay waxanta sameysay ku rinto ayaabay taasi sabab u tahayba kuweeda ragaahi way iska ilka qabow yihiinoo dheecaanka dhirta iyo ubaxay ka cabaan laakiin tadadigun baa la inagu saliday qalabkan daraasada lagu sameeyay marka mutatawirka ah waxay yiraahdeen waxay dhakada ku leedahay kun indhood wax badan oo la yaabtad ku arki laakiin awoodii ilaahay u baynoo muujinayaan waxaas afkana waxay ku leedahay 48 ilkood inagu intaynu ilkaha leenahay ilkeenu waa imisa ma tirisay wali ilkaaga 230 meelahaas way iyadu 48 way wayna dheert waxay leedahay 3 wadne mid qura hadaad adigu leedahay haduu istaago ay ku dhamaanayso iyada 3 wadna isbedelaya waxay leedahay sidoo kale sakaakiin lix ah ama khartuumkeena yar gafuurka yar waxay ku leedahay 6 mindiyood oo ka khatarsan kuwa dhakhtarku wax ku qalo markuu wax qalayo 3 baal bay leedahay oo dhinac walba 3 baal bay ku leedahay baan leeyahay wuxuu ilaahay awood u siiyay marka ay qofka bani aadamka aad doonayso inay soo weerarto ur aad u dheer oo qofka bani aadamka dhididkiisa ayay soo urinaysaa iyo kaarboonkan ka soo baxaya waxay ku taqaanaa marka halka inuu qof hurdo waliba inuu hurdo iyo inuu soo jeedana way kala taqaanaa kaarboonka laftiisa ayaa urtaa ku kala garanaysa waxa muzawwada ilaahay uu siiyay shucaac ay ku arkayso qofka jirkiisa oo ay ku garanayso xididada xambaara dhiiga meesha ay ku yaalaan ayay ku arki karaysaa wuxuu ilaahay awood u siiyay inay wadato qalab badan oo cusbitaaladan casriga ilmo bani aadam aan haysaninba oo shaybaara marka qofka kolkay u timaado waxay ku garan karaysaa urteeda inuu qofkan yahay mid dhiigiisu wanaagsan yahay isticmaali karayso iyo inuu yahay mid ama xanuunsanaya ama aan dhiigiisu macaanayn waxaad aragtaa qof baa wada seexanaysa adigu caawa kaneecad ka cabanaysa isna wuxuu ku leeyahay kaneecada sheegaysa maxay ahayd fayruusaad iyo malaha waxba isaga la socda dhiigiisa marka dadku waa ku yiraahdaa aniga dhiigayga macaano kaneecadu ima deyso iyo aniga dhiigaygu qaraariyo kaneecada ima taabato markay qofka doonaysa inay durto waxay ku sameynaysaa takhdiirkaas waa maxay qofka marka la qalayo soo lama suuxiyo way ku suuxinaysaa markaasay dhiigiina taxliil ku sameynaysaa markaasay tamyiicna ku sameynaysaa tamyiicu waa maxay
dhiigu si aanu isu qabsanina dareero uu noqdo meesheedan yara dhuuban mari kara dawadaana way ku daraysaa markay kaa dhammaysato ayay ku sii daynaysaa horta wixii ay ku raacinaysa bakteeriyadii wixii ay ku raacinaysa sida malaariyadii markay iyadu kaa dhammaysataa bay ku sii daynaysa si aanad miskiinkaa iska hawaaraad tahay aan dhiiggii yaraa kaaga daadanin dhiig joojinna way ku raacaysa iyadoo sii dhaqaajinaysaba ayaad adigu meeshii xoqanaysa markaa wixii ay ku shubtay ee ay ku suuxinaysa ayaa markaa bararkan iyo waxaan keenaya way kaa dhammaysatay markaad soo boodaysa aad meeshii ay ku cunayso min cajaa'ib illaahi bay ka mid tahay cajaa'ibteeda waxaa ka mid a noocan ilaahda jinsigeedu ilaa 35 qaybood weeye noocyadeeduna ilaa 3000 meelahaasay gaadhaan waxaa aad u la yaab badan cilmiga casriga imika waxa lagu ogaaday ama qalabkan wixii aan ishu qabanaynin lagu eego waxay leedahay bay yidhaahdeen xayawaan kale ama xasharaad kale oo ilma qabatiya oo ay xambaarsan tahay baashu waa isxambaar marka xasharaad kale dusha ku sidataa wuxuu talo ilaahay ugu raray ilaahay baa garanaya innagaba imisaynu xambaarsanay qaar baynu dusha ku sidanaa ma aragno qaarna calooshaynu ku sidanaa wataa lagu leeyahay qofka bani aadamka calooshiisa waxa ku jira xataa bakteeriya u baahan yahay oo dheefshiidkiisa ka qayb qaadanaysa Soomaa marka xayawaankaasi ama xasharada yaran microscope lagu arkayo way isxambaarayna dusha ku sidataa waxa ay daweysana Allahu a'lam wali lama ogaanin culimada qaar kood baa markaa waxay ku fasireen in waxa ay dusha ku sidataa uu noqon kara fama fawqaha marka macnaheedu waxa weey ilaahay tusaale wuxuu ka dhigayaa bacuudatan kaneeco fama fawqaha iyo waxaan ay dusha ku sidato ila wuxuu diidayaa ma jireen lagu fasiro hadii wixii dusha ay ku sidatay la helay oo xasharaadkaasa marka idinku xasharaad kaneecadana sheegaysaan arkaysaan kaneecada ilaahay tusaale idin ka dhigaya ka yaray dusha ku sidatana tusaale ka dhigaya almuhim intaasi naga filan xayawaanka la xaqiray awoodiisa uu leeyahay marka waxay dili karaysaa insaankii adduunyada maamulayay waxay dili karaysaa xayawaano badan oo aad u waaweyn marka awoodii ilaahay subhanahu wa ta'ala aynu ka arkayna kownkan iyo xayawaanada ayuu bay taasina kamid tahay wahada ma aquluhu wa astaghfirullah wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد وسورة البقرة آية التطبيع لباطن قال الله تعالى إلهي وحر الذين كوي ويان ضدك إلهي كفوا هذا إلهي كوك عن صيري الذين كوي ويان قضون بريني عهد الله إلهي بلنكيس من بعد ميثاقه انت وبلن كاتك يكدي ويقطعون وحي قوينيا ويشريا ما أمر الله وحي إلهي وفري به استغى أن يوصل إلى الحريرية ويفسدون وحي خربيا في الأرض دلك أولئك هم الخاسرون كوا ساقول بالرئيستي كيف تكفرون بالله تديه السداء إلهي وقالوا بيسا وكنتم أمواتا إذنكو أهاك ودنتي فأحياكم ويدين نولي ثم يميتكم هدنا ويدين دلي دونا مركا آخرة سنة إيسان ثم يحييكم هدنا ويدين صون نولين دونا مركا آخرة صوب حيسان ثم إليه ترجعون إنتا كذب إلهي با ليدين عرين دونا يو ألا ليدين هرقين دونا سبحانه وتعالى لقد مضى ذاتك إلهي قرآن كي سبينية وحكم ذا ballanku ilaahay kitaabka kaga qaaday ee rasuulkuna uu soo gaarsiiyay ee horena ilaahay adoomaha uga qaaday miithaaqa ay ballankaas ka baxaan oo ballan waxa uu ilaalino ama ilaaliyo un qof iimaan leh iimaanka qof kale ba aad u ilaaliyo ballan marka ballantu way la fududahay waxa laga yaabaa hadii maslaxadooda iyo manfaacadooda ay helaan dheef ay doonayaan inay ballanka jabiyaan ay ka baxaan sidoo ilaahay bay la yarqubuna fi mu'minin illa wala dhimma qof mu'mina qaaluma ilaalinayo qaraabanimo ama xigtanimo iyo ballan midnaba inuu ilaalinayo taas waa dhaqan ay leeyihiin iimaan laantaana keenaysa waxa kale ay gooyaan wixii ilaahay uu faray in la xiriiriyo wuxuu ilaahay faray in la xiriiriyo waa khalqigi qaybahoodii kala duwanaa ee ilaahay uu faray in la xiriiriyo ay kow ka ahaayeen ehelkaaga iyo jaarkaaga iyo madaxdaada iyo dadka
wada shaqaysanaysaan ama wada nooshihiin iyo muslimiinta oo dhan cid kasta oo xaq kugu leh xaqeeda fahal casaytum in tawallaytum an tufsiduu fi lardi watuqadicuu arxaamakum ulaa'ika aladiina lacanahum allahu faasamahum waacmaa absaarahum haddii aad diinta ilaahay kasii jeedsataan dad yahow waxay u dhowdihiin ama dhab ah inaad qaraabada goysaan buu ilahay arxaamta iyo qaraabada dunuubta waaweynna waa ka mid gaalkana dhaqan bay u tahay maantana casrigan aynu joogna ilbaxnimada ay sheeganayaan waxaynu ogsoonnahay qofka bani aadamka ah aabbaha iyo hooyadu mid waliba ilmihiisii yaraa uu tuuro xanaanu ku tuuray qofkii ilmihiina markii uu isaguna weynaaday wuxuu ugu abaalguday aabbihii iyo hooyadii inuu isaguna ka dhaqaajiyo markuu 18 gaadho kadibna iyagana xanaanadii lagu tuuro halkaasay qaraabo goysnimadii ayay shaqo u noqotay caan ku noqdeen wuxuu ilaahay sii raaciyay arrintaa natiijadeedu inay tahay ulaa'ika humul khaasiruun macnaha haddii aad diinta ku dhaqmi weydo khasaara kuu dambaynaya si kale haddaynu u dhigno xaqu ilaahay lahaana way diideen xaqii khalqigu ku lahaana way diideenoo way dafireen natiijadooda adduun iyo aakhiraba waa khasaaro istifaan baa halkan ilaahay uu soo dhigay su-aal loo yaqaano inkaari iyo tacajubi waa la yaab ilaahayna uu tacajub uu leeyahay aan keenna la mid ahayn subxaana wa tacaala bal anigu waan la yaabsanay idinkuna la yaaba sidee ilaahay uga gaaloobaysa isagoo gacanta baa idinku haya laba geeriyood iyo laba nololood oo dadku uu maro isaga idin mariyay rabbi subxaana wa tacaala laba geeriyood ama laba dhimasho iyo laba nololood la tarkabunna dabaqan can dabaq qofkii marxaladuu maraya yaa mariyey ilaahay subxaana wa tacaala marka ilaaha saa ku abuureen marxaladaha ku marinaya gacanta kugu haya sidaad uga gaalowday dee insaanku waa abaalaawey insaankan iimaan laha u ahay marka geerida hore waxaynu geerida dambe waynu garanay de waa tan aynu sugaynaynu dhimanayno labada nololoodna waynu garannayoo midi waa tan uurka hooyo ilaahay uu nagu nooleeyey midina waa ta aakhiro lasoo noolaynayo khalqiga lasoo noolaynayo aakhira lasoo noolaynaya marka la abaal marinayo taa garanay marka geeridan ilaahay uu horreysiiyey ee uu yidhi wa kuntum amwaatan waa geeriyeyseen maxay noqonaysaa ee uu ku bilaabay ee afarta u horreysa waxay leeyihiin qofka bani aadamka ahi dee waxba la-aanba asal u ahayd ma wax jiruu ahaa mise waxba la-aan waxba la-aan buu ahaa marka mar hadduu waxba la-aan ahaa waxba la-aantaas waxay u dhigantaa isagoo noolayn dee muu noolayn wuu geeriyeysnaa mar haddaanu jirin dee mar haddii aanu jirin oo waktigaa aanu joogin wax geeriyeysanoo kale u ka dhignaa insaan noola ama ahayn dee hal ataa cala alinsaani xiinu min addahri lam yakun shay-an madkuuran qofkii bani aadamkaa waxa soo maray baa ilahay ui wakti aanu ahaynba wax la sheegaba mu ahayn markaa wuu geeriyeystaa culimada fuqahada ee axkaamta mararka qaarkood baa waxay kala soo baxaan aayadaha caqiidada ka warramaya masalooyin fiqiya marka waxay leeyihin ilmaha yari hadduu soo dhasho isaga oo aan noolayn wax xuquuqahoo uu leeyahay ma laha qofka nooli xuquuqduu yeelanayo ma yeelanayo leannahu wuxuu la mid yahay jaamidaadkaasuu la mid yahay jaamidaadkaa waxaa qalalan unbuu la mid yahay marka xuquuqdii qofka noole uu lahaa sida salaadii iyo iilkii iyo qabrigii iyo dhaxalkii iyo waxyaabihii nooca ahaa ma yeelanayo oo waa arrin kala saaraysa qofka bani aadamka ah iyo la-aantii noloshaasaa kala saaraysa masalada waxa iyadoo ay ka hadlaysa caqiide aayaddu haddana masalada fiqigaa bay kala soo baxeen huwa ilaahay aladii ilaahay weeye khalaqa lakum idiin abuuray maa fi lardi jamiica wax allo waxaan dhulka ku haysaan dhammaantii idinku idiin abuuray uma istawaa ila asamaa samada ayuu intaa kadibna ilaahay u qastiyey fasawaahunna 7 samaawaat wuxuu ka dhigay 7 sabo wa huwa bikulli shayin caliim wax walbana ilaahay uu ogsoon yahayoo waxba kama qarsoomaan rabbi waxa ilaahay uuna tusinayaa siduu abuurkeenna u leeyahay inuu arsaaqadeennana u leeyahay bal xaggeed ilaahay uga firdhanaysa xaggeed kaga kaaftoomaysa xaggeed uga gaaloobaysa isagaa ku abuuro marxaladaha ku mariyay intaadi ifkan joogtana
adduunkan inta aad joogtana arsaaqadaada isaga haya wuxuu ku abuuray halkaad ku nooshahay cirkiyo dhulkii aad ku dhex noolayd buu ku abuuray arsaaqadaadiina isaga haya khalaqa lakum maa fi lardi jamiican dhulka waxa dul saaran oo dhan buu idiin abuuray idinka marka laamtu tacliiliyana way noqon kartaa la leeyahay ama ibaaxana waa noqon kartaa idinkaa la idiin ibaaxeeyo xalaal idiin ama dartiin baa loo abuuray si kale haddaad u dhigto kownkan aynu ku noolay waa ku casuumanahay ilaahay baa iskale subxaana wa tacaala waxaynu ku noolaanaynay iyo waxaynu neefsanaynay iyo wixii anficeennu ahay oo dhan buu diyaariyey qof haddii la casuumo oo casuumada aad u qiimo badan oo wanaagsan la keeno maxaa la gudban waxaa la gudban dee si adab leh inuu casuumadiisa u intifaacsado oo una mahadnaqa ciddii casuumtay haddii iminka lagu casuumo oo casuumad qaaliga lagu diyaariyo oo aan cidiba gaadhayno kharashkeedu badan yahay oo markaad timaaddo ciddii ku casuumtay aada gurigeedii kharibto oo isagii aada caydo oo dhan walba u riddo xumaantii maxaa lagu odhan de waa in lagu garbaduubo weeye waa lagu garbaduubaya nin waalan baata abaallaa waata markaa sidaas oo kale haddaad taa la yaabayso qofka noocaa sameeya in dee sidaa dadku u arkayaan haddii aada la yaabsan tahay waxaad la yaabtaa ilaahay adduunkan sidaa isugu keen qoofale isugu keen hagaajiyey inoo barwaaqeeyey ayna dhex keenay inagoon itaaliya arrintoona lahayn insaanka ku gacan sayda ee yidhi ma jirtid ee yidhi kuma caabudaya ee yidhi waxaa xaq uma lihid ee dafira ilaahay subxaana wa tacaala maxaad loola yaabo wey marka aayaddu waxay daliil u tahay culamada fiqigu sida ay maaragtay masaladaa u caddeeyaan ama aayaddaba usoo daliishadaan ana alasla fi lashyaai alibaaxa waxaanaynu dhulka dhexdiisa ku hayno waxa ma asalkiisu ma inuu xalaal yahayba mise waa inuu xaaraan yahay waxaan dhulka dhexdiisa yaalla ama badaha yaalla ee dhir leh ee xayawaan leh ee dhaqdhaqaaq leh asalkiisu waxa weeye inuu xalaal yahay ilaahay baa halkan ku caddeeyay waxaan abuuro dhan dhulka dhexdiisa jamiican buu waliba ku sii adkeeyey wuu sii adkeeyey marka hore wuxuu idinkaan idin abuuray haddana dhammaantiibu waa idin wada xalaal marka wixii aada cunayso haddii lagu idhaahdo waa xalaal oo waa xaaraan baan leeyahay waxaad leedahay maxaa daliila ee xaaraantinimaynaya ilaa asalku wuxuu ahaa wixii halkan aynu cunayno iyo waxaynu cabbayno iyo waxaynu intifaacsanayno dhan adduunka inuu xalaal yahay marka waa in la helaa shayga xaaraanta ah wixii daliilahaa ee xaaraantinimaynayay haddaynu daliil weyno shaygaa aynu intifaacsanayno adduunka dhexdiisa daliil xaaraantinimeeya inuu xalaal yahay baa lagu wadayaa cilalka had iyo jeer markay fuqahadu ka jawaabayaan masaladan waxay leeyihin wakaana alaslu fi lashyaai libaaxa masaladan isaa weeye shaygaasi waa xalaal dee shay walbana waxa u asal ahaa inuu xalaal yahay daliil xaaraantinimeeyaana kuma soo aroorin daliilka had iyo jeer xaaraanta loo qaadanaya inuu daliil yahayna waxa weeye daliil sugan weeye waa inaanu xadiid daciif ahayn ama waa aayad muxkama ama waa xadiid haabit ahoo sugan wajanib الضaciifa fi اlcaqaa'idi wa xukmi rabbina alcadiim اlwaaxidi sida ay leeyihiin culamaa اlisilaax xadiidka daciifkaa uma daliishanaysid caqaa'idka ama caqiidooyinka iyo xalaasha iyo xaaraanta waxaynu kaloo ka faa'idaysanaynaa aayadda xalaasha iyo xaaraanta inay badan tahay xalaashu xaaraantuna yar tahay waxa xaaraanta haddii la tiriyo wuu yar yahayba dadkunbaa ibtilaysanoo kullu mamnuucin marquub baa lay qofka wixii loo diidaa unbuu ka daba dhacaa si eegayaae inta xaaraantiiba waa yarta oo haddii aad arki doonto nebi aadam calayhi salaam waxa la jannadaasoo dhan daaq waynu arki doona waa gaari shadiisa waa tan soo socota laakiin geedkaas un iska ilaali jannadii iyo geedka iyamaa badan dee waxa badan jannadii ilaahay baa badan geedkiibuu markaa ayuu ku dhegay odaygii islaanti oo midi ku riixay inkaar qabo ibliis la idhaahdaa innagana bal waxaad isu eegtaa adduunkan waxa yaalle faraha badan ee bad iyo berri ku jira ee la dheefsanaya farabadnaantiisa ee xalaasha ah iyo in yaroo la tiriyeyba oo xaaraana dee intaa yarunbaa geedkii ka dhigan marka haddaad la yaabi lahayd odayga iyo islaanta arrinkooda soo socdo ee nebi aadam iyo xaawo ood odhan lahayd maxaa ku saliday geedka ma inta kalaa ku filayda intifaacsadaan jannadaa baynu iska joogi lahayne adiga maxaa kugu saliday
xaaraanta dhirteeda la waaba yar tahaybe waxaad kula yaabta waalidka ma jiro adigaaba lagu yiri waxa la waxa kownkan yaa loo dhamay xalaal buu ku yahay dhowrka geera xaaraantu iska daa waaye taasina midaynu ka faa'iideysano weeyaan istawa erayga ah mar mafcuul toosa buu qaataa isagoo xaraf jaaraan isticmaalay marna wuxuu qaataa erayga ilaa ayaa ka dambeeya sida halkan oo kale marna calaa baa ka dambeeya marka calaa kolka ay ka dambayso macnihiisu istiwaa buu noqdaa in shaygaasi uu ku ekaaday laakiin kolka ilaa ay ka dambayso sida halkan oo kale waa macnihiisu waa qasad weey oo istawa uu ku egaaday halkan maahe ilaahay samadiisu u qastay weeye todobuu ka dhigay wax walbana uu karaa dhulkiibuu abuuray wixii khayr dhex yaalay buu abuuray samooyinkii oo todobaana uu abuuray todobadii dhulkiina waa todoba marka intaas oo dhan waxa lagu cadcadeynayaa ilaahay ku abuuray intifaaca iyo arsaaqada ku siiyay ee adduunkan kugu casuumay edab uga dambeeyo ka amar qaado marka halkan waxa rabbi uu xusaya hadaba khalqigan aqliga leh inta aqliga leh ee ilaahay u abuuray waa jinka iyo insiga iyo malaa'igta saddexda qaybood iyo abuurkoodii hore iyo imtixaanada la soo maray iyo imtixaanka cidda ku guuleysatay iyo cidda ku fashilantay qisadii nabi aadam oo qisooyinkii aynu xusaynay u soo horeysa ayaa halkan aynu ku arki doonaa qisaska had iyo jeer quraanka dhexdiisuna faraha badan ay noo iman doonaana faa'iidooyin badan bay leeyihiin qisooyinkaas faa'iidooyinka ay leeyihiin waxa ka mid ah nebiyada iyo wixii dhibaato soo maray ayaa rabbi inoo cadeeya subxaanahu wa tacaala si aynu ugu cibro qaadano laqad kaana fii qasasihim cibratun liuli lalbaab cashar iyo daris baa ku sugan nebiyada qisadooda ciddii caqlina ay wax ku qaadan karayso dadkii ahlulkitaabka ahaa qisooyin badan baa kutubtooda ay xusayeen dadka been bay uga sheegeen qisooyinkii ay badbedeleen bay ummadda u keeni jireen qur-aanku sida xaqaa buu caddaynaya oo carabtii ay harawsan jireen ama beenta u sheegayeen ummadihii ay beenta gaadhsiinayeen ama beentoodii waxa suulinaya qisadii oo sax ah ayaa qur-aanka kariimka ilaahay uu ku soo bandhigaya subxaanahu wa tacaala faa'iidooyinka qisooyinku leeyihiin waxaa ka mid ah dadka kibre iyo kuwa daalimiinta ah ee dulmi falayaasha ah markay qisada akhriyaan ay arkaan waa inay gartaan cidhib xumadooda halkay ku dambaynayso ilaan intaasoo daalim baa adduunyada soo maro kibre oo adhaxda ka jabay faqsus ilqasasa lacallahum yatafakkaruun qisooyinka u akhri bal inay kuwaasi fikiraan ay wax qaataan buu ilaahay وتثبيت فؤاد الرسول ولكل داعي قصوينك نبي محمد بقلبك ودجيان يقف كسطو حق وضاء وناك دتك جارسينيا وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك قصوين كان كل شيء قلبك يكون صغير نبي موسى لهاون حريص تقول نبي الله عليه الصلاة والسلام دم قضاه وحل الربا انت أنا قال الربا إن لك انت أنا قال الربا إن كبدن بالربا أنا وأنا أسكت رابو النبي الله عليه الصلاة والسلام قصوين كهذه يجرى وحي نوع عضينا يعني مناهجتي يهديجي يدقن كي النبي ذو كسرين يقول هذه هبك يقول باقي ترين أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدي نبي ذا إلهي بهنونيه ولدونا منهج كودي كسرعة لين لين وضرب من ضروب التربية قصوين كهذه يجرى وحويان بني آدم كان الدنيا ده صامر يسير ضد كمسلمين توحد والشيء ربيعيا عيد ولو برشة كمية هي أمر كقصص كآخر ده عشان رخص سيء كهليس مثلا قلنا دقالها مركو قفكو آخر قصة النبي يوسف دقالة صحن أهر ومر له يو كهليا استراتيجيات له وتكتب تغلق قراي يا دقالها فاسد كه وكي قارونه ضد كهذه يشر ملح لا مسؤولين ملح وناكسنا يكون ضيدان عادلين وطلي يضد بان فعيبي قصص كهليان سيدا النبي سليمان ذو القرنين نبي داودي ده ضدكي قرآنك او تلمامه استبداد كودا iyo kali talistimadooda iyo guul darada uga dhaceen qisadii fircoon bay ka akhri karayaan dhalinyarado kale qisadii nabi yuusuf markay akhriyaan iyayna shucayb qisadoodii de xishoodkii iyo cafaafkii iyo akhlaaqiyadka wanaagsan iyo sidoo dhaxalgalka u yahay ayay ka arki karayaan dadka mubtaliintii tasliya ka helayaan dadka adiga jeer dhibaataysan
ama adduunkan ku imtixaanan ama diiqad iyo cidhiidhi ku noolaan lahaa qisooyinka markay akhriyaan qur-aanka waliba suuratul anbiyaa aad akhrido qisadii nebi ayuub oo kale iyadana cibra ayaa kaaga kordhaysa qisaskaasi had iyo jeer waxyaabahaasay u taagan yihiin waxaa kalood ka arkaysaa diimaha samaawiga inay leeyihiin waxyaabo badan oo shuruucdaa ilaahay uu dejiye oo mushtarak ay ku yihiin ay wadaagayaan oo tawxiidka iyo akhlaaqiyaadka wanaagsan iyo naxariista iyo waxaasoo dhan oo ay wadaagayaan oo aan naskhi gelin oon iyagu isbedelin waxaynu ka daalacan karaynaa sharcan man qablana rususha inaga horreeya sharcigooda ayaynu ka arki karaynaa qisooyinkaasi markaynu qur-aanka dhex galno waxaynu arki doonaa nebiyada qisadooda uu qur-aanku soo bandhigay waxaa ka mid a nebi aadan nebi nuux nebi huud saalix ibraahim ismaaciil luut isxaaq yacquub yuusuf awlaaddii asbaadu loo yaqaanay alasbaad ilmo yacquub ayuub dulkifli shucayb yuunus muusa haaruun daawud sulaymaan zakariya ciisa yaxya ilyaas yasac intaasoo dhan waa nebiyada aynu qisaskooda ku arki doonno 114 suuradood ee qur-aanka ee suuraddan ay usoo horeyso waxaa jira qisasulxukamaa dadkii xikmadda badnaa qur-aanku hoosta uu ka xariiqay ama calaamadiyey qisooyinkooda iyo faa'iidooyinka laga qaadanayo sida luqmaan ulxakiim dulqarnayn khadir cusayr qisas xataa dumarka ka warramayaa jiro oo dumarku wax badan ay ka qaadan karaan qaarna ay ka feejignaanayaan dhaqankoodii xumaa qaarna ay ku dayanayaan sida xaawa oo maaragtay dee nebi halkan iminkaba aynu ku arki doonno qisadan nebi aadam asalkii bani aadamku uu ka farcamay iyo xaaskii fircoon aasiya bintu musaaxim nebi luud iyo nebi nuux xaasaskoodii oo iyagana laga dayriyey oo khatar badnaa nebi ibraahim xaasaskiisii aajare iyo saara magacooda qur-aanku aanu caddaynin laakiin awsaaftoodii iyo tilmaamahoodii uu tilmaamay gabadhii boqoradii sabab balqiis magaceeda lagu sheegay iyo taariikhdeedii iyo habartii inkaarqabtada ahayd ee umu jamiil la odhanayay ee qur-aanku halkee ku sheegay iyadana wamra'atuhu xamaalata alxadab habartaa inkaarqabtada ah almuhim qur-aanku waxaa kaluu tilmaamayaa xayawaanada iyo qisaskooda sida asxaabulfiil iyo qisadii saca hashii nebi saalix quraanjada iyo qisadeeda kaneecadan aynu arkayno xuudkii nebi yuunus liqay ximaarkii ama qisada dameerka aynu xagga dambe ku arki doonno quraabkii iyo tukihii qoladii asxaabulkahfi iyagana aygoodii oo la xusay hudhud iyo daabatul-ardi bahasha loo yaqaanee muxuu ahaa aboorka ushii uu nebi sulaymaan ku taagnaa isagoo cunaye saa uu ku dhacay almuhim waxaasoo dhami duruus iyo cibar iyo casharo ayaa ay xambaarsan yihin oo aynu arki doonaa qaala allahu tacaala ilaahay baa wuxuu uhi waid wadkur nebi maxamedow xus darafkaasi had iyo jeer darafkaasi wuxuu u taagan yahay inuu ficil baa ku tacallu ayaa maaragtay ku camal falaya id waqti xus nebi maxamedow qaala rabbuka lilmalaa'ikati rabbigaagu wuxuu ku yidhi malaa'igtii innii jaacilu fi lardi khaliifa dhulka waxaan ku abuurayaa mid khaliifo ah khaliifa waa dad isdhalo oo isbedela qaaluu waxay dhahaan atajcalu fiiha dhulka ma waxaad ku abuuraysaa man yufsidu fiiha dad khariba wayasfiku dimaa dhiiggana daadiya wanaxnu nusabixu bixamdik annaguna waanu kuu tasbiixsanaynaa mahaddaada annagoo ku darayna wanuqadisu laka taqdiisku macnaha waa ku hufaynaayo wax ceeba kuuma ogolin oo kuuma sheegayn qaala ilaahay wuxuu uhi innii aclamu anigu waxaan ogay maa laa taclamuuna waxaydaan ogeyn wacallama aadama alasmaa'a kullaha magacyadii oo dhan buu baray nebi aadam uma caradahum wuxuu u bandhigay magacyadaas wixii macnaha lagu magacaabayey eshayadii cala almalaa'ikati buu bandhigay malaa'igtii buu waxyaabaha hor keenay faqaala wuxuu uhi ambi'uunii waxaa iiga warantaan biasmaa'i haaulaa'i kuwan magacyadooda in kuntum saadiqiina haddaad tii kuwa run sheegaya annagaa macnaha wax og haddaa ku run sheegaysaan marka qisadaasi halkaa ka bilaabantay waa qisadii nebi aadam calayhi salaam iyo xaawa iyo marxaladihii abuurkooda uu soo maray ama aan idhaahna imika halkan waxay u taagan yihiin siduu ilaahay u maamuusu jannada u geliyey ama uu ugu sujuuday malaa'igta u faray inay u sujuudaan dagaalku ibliis ku qaaday dariska dambeyn faahfaahintooda ku qaadan insha allah
والله سبحانه وتعالى أعلم. الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قصة النبي آدم صدح خلقي بها ميشا يالا وصدح قلاء أيها كور رميسا قصة قلوا ملائكتي لها يوم ما بالها وح شرع خير مويان قلوا الله بعدنا وحويان إبليس يعلكي سو ما بالها وح خيرة شر مويان قلوا صدحاتنا وأيه وإنجا وهذا مية حواي نصه الرئاس الكينية لا سينو دحينا كلام بيدو بين قنيس هدي عاد إلهي كتلقى هذا نيسو سبحانه وتعالى أولياء سنة كم تهاي أيان كاجونا في عينها أو المرين في عنا هذه ليسوا وحدوه ليس ملايكت إن عونا أحسن مديكت أيات راعي سحوتشين يسا وتكبي رئيس هدي قف وياي قف حن أردين عيش شرك وقالب نقضينا صفك إبليس بقدر مياه marka digniintu waxay u taagantay safka ibliisa ku darminay saddexda qolaa taagan safka malaa'ikta iyo awliyada ilaahay iyo khalqiga ilaahay amarka ka qaat ku biiro ku darma halkan waxa timid ilaahay oo la hadlay malaa'iktu waa abuuray subhanahu wa ta'ala wuxuu ogeysiiyay u sheegay inuu dhulkan dhexdiisa ku abuurayo khaliif ogeysiintani ma aha inuu ilaahay u baahan yahay malaa'ikta oo dileeya igala taliya la oo ma baahna subhanahu wa ta'ala khalqigiisa لكن وإعلامين وأوجيسين استشارة إلهي وما باهنا وحبك ما قرصونا إني جاعل في الأرض خليفة أرجع خليفة صدح معناه أيو قارن كرابي لنا علباده خليفة يخلف بعضهم بعضا وضد يجو استدلوا قرن مركو تجا قرن كلا نحله أو استبدليه نلاشوا ذسيا وصعد أما هو خليفة ويو عدي هراء كو أبورنا هالكن دول كمركا كو أبورنا ولا ذي دونا ينها هذاني عد بدشه ودول كي عمرت أما هو خليفة شرعي إلهي الدين تإلهي عد وكيل كجن نقطة إلهي الدنيا ده كنا قاتش سوف لسه وإلهي مركو كتبتي سكانه وحي يسوي شرعي يسوي سود تشيو عدي مامل كنا قلنا هيدا وناقة كوه كامل له marka halkaana waxay adduunyadii u taagan yihiin oo loo xil saaray ma bani aadam inay adduunka hoggaamiyaan iyo noolaha kale si sax ah u hoggaamiyaan khaliifa yacnayaasha soo qaadan kara malaa'iktu ilaahay su'aal bay weydiiyeen su'aashani ma aha mid caaridada malaa'iktu caynka baa laakiin cilmi bay doonayaan waxay yiraahdeen ilaahay ma waxaad ku abuuraysaa dhulkii qaar fasahaadiya oo dhiiga daadiya iyo annaguna wanaaguna aanu la taaganay وحمدك هي التصبيح هذا هي التقديس هذا وسبحان الله والحمد لله أيان ولا تاجنا وواكو أمانينا لهاي بحوجو جوابي وحنوجه هاي وحيدان وجين وحيس ويدين له ملائكته مركز سؤاشن إلهي ويدين يعني حكيك أوجادين إن خلق جاني أي سيدا يالي طوران يجاب الشيء وحيدان لا علم لنا إلا ما علمتنا إلهي يوم بأوش شيء سبحانه وتعالى هرب الشيء وبيسيه waxa kala xusid badan dhulka oo la fasahaadiyo malaa'iktu way sheegeen oo de bani aadamku macsiyo iyo gaf ku fasaadinaya laakiin dhiigiiba wixii wax lagu fasaadinaya mid gaar oo kamida gaar loo soo qabtay wayasfiku dimaa oo daadinta dhiiga taas waxay cadeynaysaa deelan culimadu waxaan la yiraahdaa dhiiga daadintiisu inuu yahay fasahaadka u weyn ama dhibaatada ugu weyn ee dhulka laga geysto أو حول ما أما لا بديهاي مقدسات كل بعضي حرمك إلهي ولا فسادي ولا حماية هي كعبة ولا الدمية وحلم إذا ليج قفك مؤمن كهلا طاضي وكمان رخيص كالنقضي يدك مسلمين تادي جودي للضادين حيا عالم كلجوا فسادية وقدرن بكمدي ساد راديت بس سيجارة أي ملاك وعينين ولا هو حقوق شوابه وحنا جاي وحيدان وجاي وارون علمك أطوامه وكوبيه الله وحول وفوق كل ذي علم عليم بدو لا علم لبا بد علم لا كسي سرايا وكسي سرايا علم إلهي بسقوب يشب ما سبحانه وتعالى
سادرادد به هبونتها قفكو إنه عاد يستأرج والله أعلم نبي موسى رير بنو إسرائيل كل هذا من أعلم الناس سوى خطبة خريعة ضد كياو علم بدنا أنا جبوا دواتي لقى رعاها لك كورس دير بالله دري وتخدر عندها لوجلي أنت صوت شر وكسر صاري وحانو جراني مركي وضمبه وفسرينا هو أركينه يهاي واحد وكوكن عيو والله أعلم معناه وحي الشيء يسا إنسانكو وحادية شر وأصلا جهلي با وصلا مع علمي با وصلا قفك بني آدم كان يسجهلي جهلي با وصلا ما الدليل على ذلك إنه كان ظلوما جهولا نفتي سنو الظلمية يا قفك جهول ومن جهل بدوي ولماذا waxay yiraahdaan ka hadla aadaabta cilmiga loo barto marka ka hadlaya waxay yiraahdaan al-ilmu thalathatu ashbar cilmigu waa saddex taako man dakhala fi shibr al-awwal takabbara qofka taakada u horeysa qaada wuu isweyneeyaa waman dakhala fi shibr al-thani tawaadaca qofka taakada labaad qaadana wuu isyara gaabiyaa oo joogsadaa ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه ما يعلم قفك تاكدا صدحات قادانا جهلgiisu arkaa ana marka wixii si kala hadii loo dhigo qaybta nidaamiga waxbarashada marka aad eegto qofku markuu secondary-ga marayo murankiisa iyo jaafaajiriqiisa uu badanaya ama hadduu xalqada joogana kutubta yareera bilowga markuu akhristo qof walba uu la murmaya waa takabara markuu degree-ga qaato jaamacadda ka baxana dib uu joogsanaya PhD da markuu qaato markaasuu gaashaanku ku soo gaabanaya markaasuu arkaya jahligiisa marka la yiraahdo wixii la dhigayo waa lagu dhameeyay adaa lagu sugaya laabud an takuna baaxithan waa inaad noqotaa mid maktabada wax ku soo kordhiya ummadda cilmi ku soo kordhiya adaa marti lagu yahay lagu eegayaa maxaad haysaa madaxuu xoqonaya marka dib uu fariisanaya marka waxay culimadu yiraahdeen iyaaka an takuna saaxiba shibri waxaad inaga ilaalisaa inaad noqoto taakoole ka taakada la waalanaya haynagu noqon marka malaa waxaynu oran karnaa bariyahan dambe taakadaas ay na wareerisay siiba daayar kaasa iclaamkan iyo warbaahintan markii la helayna qofkii iska bilaabo muftibaabu isu dhigayaa markaasuu ka sii deynaya taasi waxa weeyaan walaa taqfu ma laysa laka bihi ilm almuhim masaladaas waa mas'ala kale laakiin waa inaynu ogaanaa cilmiga inaynu baahina u qabno oo aynaan ka dhargeyn manhumaani la yashba'ani taalibu ilmi wa taalibu dunya laba ka kani ama mamani ma dhargaano qofka cilmi doonaya iyo qofka maal doonaya saan maalka looga dhargin cilmigana loogama dhargo inni a'lamu ma la ta'lamun marka adoomuhu laba arimoodba waa inay caadaystaan in sha Allah wallahu a'lam labadaasi waa muhiim talaabooyinka mustaqbalka in sha Allah ha kugu badato iyo wallahu a'lam wixii aad sheegaysaa nabi aadam alayhi salaam malaa'ikti waa kuwan yiri maxaad ka abuuraysa isaga awlaadiisa ilaahay baa markaa wixii ogaabu doonaya inuu muujiyo nabi aadam wuxuu baray magacyadii oo dhan kullaha thumma aradahu marka magacyadaasi waxa la barayaa shay walba iyo magaciisa shayada waa ismigii iyo musamayaadki magacyadii iyo wixii magaca loo ahaa oo thumma aradahum uu soo bandhigay muxuu soo bandhigay waxa la soo bandhigaya waa shayadii magacyada lahaaba ilaahay uu soo bandhigay subhanahu wa ta'ala malaa'iktii uu soo hordhigay wuxuu bal waxyaabahan in hor yaala magacyadooda ii sheega marka shayada halkan la soo dhigay culimadu waxay leeyihiin waa shayada ay u baahan doonaan bani aadam adduunyadan ilma bani aadam waxay ku isticmaali doonaan ay u baahanayaan ayaa halkan ilaahay uu soo dhigay oo malaa'iktii uu hor keenay nabi aadam hor keenay magacina way wada leeyihiin waxa halka laga faa'iideysanayaa bay leeyihiin culimadu luqadda iyo magaca yaa dajiya waa mas'ala khilaafiya laakiin sida raajix ah waxa weeye inuu ilaahay dajiyo subhanahu wa ta'ala luqadaha yaa u bixiya dadka ilaahay baa u bixiyo baraa sidoo shay walba oo abuuray luqadiisina isagu abuuray marka haddii xataa dadka qaarkood meel la isugu xareeyo gaara luqadda ay la baxayaan ilaahay uma bara subhanahu wa ta'ala dadku horumar ha sameeyaan ama xirfadaha u yeeshaan laakiin waadica luqaduhu waa ilaahay saalkan baa aynu ku arkayno waxaad ka arkaysaa ilaahayna waxba ku adkaan subhanahu wa ta'ala maskaxdaada yar liidataha oran
ووحنا ردني لهاي تلو هالكو كصاقوري هذا أنا مركي دم هالكو كعلي دم وحباكو أتكالا وحباكو ما أتكالا رب لو أتهروا وكوصوا شيء وهو بكل شيء عليم وحول بي لهاي واكرا وحول بي وأجيه أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا وحيد هذا المركا ملائكة سبحانك إله وذيك حمان كوفا لا علم لنا علم ملهن إلا ما علمتنا وحي أدنى برتيم وياني إنك أذوق أنت أذوق العليم الحكيم من علم بدن باتهاي حكمتنا له قال مركا إلهي وحول يا آدم نبي آدم أنبئهم بأسمائهم ملائكة وحدوا شيكتا شيئا مقعيدون أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم مركو ملائكتي ورمايا وشيغay shayadii magacyadoodii qaala ilaahay wuxuu yiri alama qul lakum umiyana idinku oranin inni a'lamu anigu waxaan ogahay qayba samaawaati wal ard waxa maqan samooyinka ku maqan iyo dhulka waxa ku maqan baan ogay wa'lamu waxaan ogahay ma tubduuna waxa muujisanaysa wama taktumuna iyo waxa qarsanaysan abadaba waan ogay sawtan idin sheegay saasa ilaahay uu ku subhanahu wa ta'ala marka halka mustafaadaadka aynu qisada ka qaadanayna waxa weeye ithbaatu alqawl lillahi subhanahu ilaahi qawl buu leeyahay xarf leh codna leh waa inaga akhriyayna waa kalaamkiisa sida dadka qaarkood ama firqadaha qaarkood oo leexday ay yiraahdeen ilaahay kalaamkiisu daatadiisa ama isagu buu ku qotomaayo ma soo gudbin taasi sax maaha إلهي وحول بينه فراء وحبا أنا كو أتكاني بينه هل كان كأركينا فعال لما يريد لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وحباكم ما أتكاداني وحو دانو السمايا إذن وحبا ويدين كرتو ملائكته وعالم غيبية وغيب كي نقم قبل كامدي وحين نكر رمينا أنت وحي قوينوغا شاقين وحين وحي قوينوغا شاقين كما رمين كرنا أما كما أوران كرنا نبي قنوح الشيخ عليه الصلاة والسلام إن النور لقى أبو ري هلك تشينكي شياطين النار لقى أبو ري شياطين تي أباريست يجانا نور با لقى أبو ري إن جانا عيد با لين لقى أبو ري سيدنا النبي عدي عليه الصلاة والسلام مقر كودي حرون تودا يدقيه هنا وعالم قرية السبادة حكمة ده إلهي وحي كانت بني آدم كوين السيدان وفرع عمانا وانا حكمة ده جورك لو تشريوي جورك واحد لو تشريوي إنه dadku tarmo oo khalifa ay kala noqdaan ay istabahayaan waxa qisada aynu ka faa'iideysanayna dadka adduunyada ku nool in madaxdu ay laga maarmaan u tahay oo waxa fawda la yiraahdo iyo madax la'aan aanay ku soconayn masaa'ilka muhiimka ee muslimku uu aaminsan yahay ka mid tahay inay yeeshaan madaxdaasina ay wanaagsanaato diin iyo dunyadana ay u hagaajiso waxa fawdada la yiraahdaana waxyaabaha lagu halaagsamo way waxaan halkan ka arkaynaa qofku hadii uu wax shay wanaajinaya inuu sheego inaanay ceebaan lahayn ceeb male oo malaa'iktu halkan waxay yiraahdaan wanahnu nusabbihu bihamdi wanaagi ay qabanayeen ayuun ba sheegeen laakiin waxaanay ogeyn oo xikmadaho meesha ku jira ayaa rabbina halkan u sheegay oo u cadeeyay sharcigu wixii uu inoo sheego waa inaanu qaadano wax badan oo danteena baa ku jira oo aynaan ogeyn inuu heli doono marka aynu raacno waxaynu halkan ka arkaynaa fadliga iyo sharafta uu leeyahay cilmi oo nabi aadam calayhi salaam dee muallim buu noqday malaa'iktiina arday bay noqdeen marka ibnu kathiir rahimahullah siduu leeyahay waxa halka ka muuqanaya buu inuu dee muallimka arday ka fadli badan yahay Soomaa ardaydii kol haday malaa'ikti ardayna muallim noqday fadliga nabi aadam cilmiga uu ku fadli badan yahay baa ilaahay halkan uu ku muujiyay adoomaha qaarkood inuu ilaahay cilmi dheeraad siiyay inuu arkayna oo khalqigu xagga cilmiga waa ku kala fadli badan yahay awliyada ilaahay iyo saalixiinta oo wanaagsan waa ka nabi aadam ba ka fadli batay malaa'ikti xagga cilmiga imtixaanka shayga la yiraahdo wax iska jira way oo quraankuna uu nabaraya dhaqanka nabi maxamedna uu nabaraya calayhi salaatu wasalaam imtixaan baa laga qaaday nabi aadam iyo malaa'iktaba nabi aadam baa ku guuleystay saasoo kale uu tartanka uga qaaday imtixaanka nabi maxamedna calayhi salaatu wasalaam
ardaydiisa iyo dee asxaabtii qofka bani aadamka waxa u habboon inuu naftiisa garto qadarkeeda oo aanu isqaadqaadin qabna isu yeelin waxaanu garanaynina aanu isku qaadin waayo malaa'igtu way isdhiibeen markii ilaahay uu ku soo saaray arrintan iyo nebi aadam cilmigan uu siinayo waxaynu ka arkaynaa malaa'igtu sida ilaahay u weyneynayaan subxaanahu wa tacaala iyo erayaday ku jawaabeen qiimaha ay leeyihiin sifaadka ilaahay bay ayaa aayaadku ay noo caddaynayaan alcaliim alxakiim oo inoo muuqanaya waxaa markaa ilaahay u gudbay arrin kale oo iyaduba ah imtixaan qaala allahu tacaala waid wakti xus nebi moxamedow qulnaa lilmalaa'ikati malaa'igtii waxaanu ku nidhi usjuduu liaadam nebi aadamu sujuuda fasajaduu way sujuudeen ilaa ibliisa ka la yidhaahda mooyaane abaa isagu wuu diiday wastakbara wuu isweyneeyey wa kaana min alkaafiriina gaaladana uu ka mid ahaa waqulnaa waxaanu nidhi buu ilaahay yidhi yaa aadamu aadamow uskun deg anta wa zawju adiga iyo xaaskaagu aljannata jannada dega wa kulaa minhaa jannada waxaa ka cuntaan ragadan cunitaan waasica oo ballaadhan oon xad lahayn xayثu shi'tumaa goortaad doontaan iyo meeshaad doontaanba wax ka cunaa walaa taqrabaa ha u dhowaanina haadihi shajarata geedan fatakuunaa min aaalimiina waxay idinka mid noqon doontaan kuwa dulmiga sameeyey faazallahuma shaydaanu shaydaankii wuu ka soo simbirixiyey canhaa jannadii buu ka soo simbirixiyey wuu ka soo tuuray faakhrajahumaa wuxuu ka soo saaray nebi aadam iyo xaawa mimaa kaanaa fiihi barwaaqadii iyo khayrkii badnaa ay ku dhex jireen buu ka soo saaray wa qulnaa waxaanu nidhi buu ilaahay yidhi ihbiطuu dega bacdukum libacdin qaarkiinba kuwa kale cadow baa isu tihiine dhaafa halkan walakum fi lardi dhulkana waxaa ku leedihiin mustaqarun meel aad degtaan wa mataacun iyo xoogaa raaxo ah oo ku raaxaysataan oo ku casuumantihiin ilaa xiinin inta aa adduunka joogtaan markaa ku waari maysaana intaasaa ilaa intii muddo ka aho inta dhimanaysaan imtixaankan bilaabmay waxa weeye nebi aadam ayaa la faray inay u sujuudaan malaa'igtii malaa'igtu ilaahay amarkiisu bay qaataan laa yacsuuna allaha ma amarahum wayafcaluuna maa yumaruun waa khalqi u taagan inay ilaahay adeecaan oo aanay caasiin saynu horeba usoo xusday waxyigana ka arkayna sujuuddaasi la faray waxay dhinac ka tahay sujuudu tashriif dhinacna cibaado dhinac waxay ka tahay tashriifoo nebi aadan baa ilaahay uu ku maamuusaya dhinacna cibaaday ka tahayoo dee ilaahay amarkiisii baa la qaadanaya ilaahay amarkiisa kii diidayna inuu gaaloobay baa ilaahay uu tilmaamay wa kaana min alkaafiriin marka ilaahii sujuudda lahaa ayaa yidhi aadamkan u sujuuda marka nebi aadam lama caabudaye ilaaha amarkiisa la qaatay ayaa la caabudaya idan markaa dhinacaa cibaaday ka too amarka alleh mar haddaad qaadato waa cibaado dhinacna waxay ka tahay sharfidoo nebi aadam ayaa ilaahay uu ku sharfaya sujuuddaas in loo sujuudo innaga sharcigeennan cid aan ilaahay ahayn sharcigeennu wuu diiday sujuuddan horta waa maaha sujuudu linxinaa sujuud foorarsiya maaha oo qofku foorarsanayo laakiin waa sujuud fooda la dhigayo faqacuu lahu saajidiin sujuud u dhaca buu ilahay subxaana wa tacaala sujuud u dhaca ama waabay sujuudeenba markaas in cid kale loo sujuudo oo khalqiga ka mid ah waa la diiday sanab looma sujuudayo bani aadam looma sujuudayo madaxna looma sujuudayo asxaabtu ridwaanullaahi calayhi markay soo arkeen nimankii gaaleeda boqorrada ahaa boqorradii reer yurubiya reer eeraan iyadoo la sujuudayo
dee nebiga waxay ku yidhahdeen adaaba ka fadli badan amaan kuu sujuudno anigu addoonkii ilaahay baan darajada in la idhaafiyana ma jecli sujuuddii halkaasay ku hakata marka cid madaxa loo fooranayo iyo cid fooda loo dhigayo labaduba halkaasay ku hadheen laakiin ilaahii sujuudda lahaa baa nebi aadam yidhi ha loo sujuudo subxaana wa tacaala ibliis baa isagu isa soo taagay ibliis waxa uu ka yimi meeshuu joogaa oo isaga laftiisana dee khalqigaa ilaahay wax ku tusayaayoo malaa'igta ayuu goobtan la joogaa ilaahay baa xikmad ka leh waxa uu halkan u keenay oo waa kaa dee aynu casharadii iyo duruustii iyo cibrooyinka ka qaadanayo isagu meeshuunbuu ka soo boodayo amarkuna wuu ku jahaysnaa markii la yidhi sujuud isagu wuu diiday istinuu mutasilna wuu noqon karaa munqadicna wuu noqon karaa waa laba macnoo kala gaar ahoo mustathnaa iyo labada shay lasoo kala reebaya markay isku qolan yihiin waa mutasil baa lahay hadday kala qolan yihiinna waa munqadic baa lahay waxaad isweydiinaysaa talow muxuu sujuudi waayey markaa ilaahay baa ka jawaabay abaa wastakbara wa kaana min alkaafiriin su-aashaadii saddexdaasaa laga jawaabay cudurdaar muu lahayn ma maqnayn muu xanuunsanaynin muu hawlaysnayn laakiin wuu diiday waanu kibray gaaladana wuu ka mid ahaa marka ayadda waxyaabaha inoo caddaynaysa waxaa ka mid ah cudurrada ibliiska ku dhaca waxaa ka mid ah ilaahay oo la diiday subxaana wa tacaala cudurrada ibliis uu leeyahay ee bani aadamkana soo gaari kara ku dhici kara diidmada ilaahay la diidaa waa shaqo ibliis kibirkuna waa shaqo ibliis waxaana labadaba ku kalifay xasad ayaa ku kalifay oo qur-aanka ilaahay muxuu ku yidhi markuu hadlayay wuxuu yidhi ana khayru minhu khalaqtanii min naarin wa khalaqtahu min tiin janaba ka khayr badane ka khayrka badani miduu ka khayr badan yahay siduu ugu sujuudi karaa markaa wuxuu keenay qiyaas iyo daliil caqliya oo daliilkii ilaahay ka hor jeeda oo faasid ah wa kaana min alkaafiriina waxay caddaynaysaa gaaladu ka mid aha kaana min aljinnina way jirtay fafasaqa can amri rabbi malaa'igta kamuu mid ahayn ayaa halkaana ka muuqanaya inaanu malaa'igta ilaahay ka mid ahayn ibliis laciin waxa marka aayaddu ay noo tilmaamaysa qur-aankuna meelo badan xusay cadowga koobaad ee insaanku uu leeyahay inuu yahay maxay kaa aabbaheen weerar ku soo qaaday ibliis la yidhaahdo ina shayطaana caduwun lakum faاtakhiduuhu caduwan shaydaanku cadow buu idin yahay cadow ka dhigta ayaa ilahay wey nebi aadam calayhi salaam iyo xaaskiisii xaawa ilaahay digniin buu siiyey ibliis baa looga digayaa innagana waa la inooga digay digniintaasina way soconaysaa qofkii qaataana wuu guulaysanaya kii kalena waa guuldaraysanaya ilaahay wuxuu nebi aadam iyo xaawo jannadii dega baa layidhi uskun anta wa zawjuka aljanna adiga iyo xaaskaagu jannada dega jannadaasi waa tee ma janno ku meel gaara bay ahayd mise waxay ahayd jannatu lkholdi tii lagu waarayay qowlka culimmadu u badan yihiinna raajixaya waxa weeye waa jannadii lagu waarayay ashaasaa sheegaysa cahdi waa cahdiya waa janno la isla ogyahay waa ta qur-aanku uu ka warran waa ta qiimaha badan wey ilaahay ma caameeye subxaana wa tacaala addoommaha meeluu ku soo reebay oo uu ku caameynaya maaha waa meel ay ku barwaaqaysnaana waa jannadii asalka ahayd wey jannadaasaa la yidhi deg adiga iyo xaaskaagu xaaskiisu dee waa xawa qur-aanku magaceeda ma cayimin laakiin waa xawa weeye xaawiyey ku abtirsata xagee ka timi dee nebi aadam wakhalaqa minhaa sawjaha iyada unbuu isagunbuu ka abuuray iyada muran iyo jaafaajiriq ma keeni karnoo ma odhan karna tii laga abuuray dee siduu u guursaday dee ilaahay waxna xalaaleynaya waxna xaaraantinimeynayay ayuunbaa intuu ka abuuray islaan uga dhigay iyo oori aadam ubadkiisuba cid kale ma ahaynine ti intii hore kumeelgaadh bay ahayd oo waa la isguursanayay oo carruurtuunba xalaal isu ahay markii dambe dadku batee la kala durkay ayuunbaa laysu taltallaabay naski baa la yidhaha wax naski diimihii hore samaawiga aha naski bay lahaayeen markaa kolkii dadkii batay baa waxaa la nasakhay guurkii walaalaha التحليل والتحريم حق له تعالى حلالينتي حارانتنمينta xaq ilaahay iska leeyahay inagu amarkiisu baynu qaadanayna mar walba wixii uu inoo sheegun baa sax waxa halka ka muuqanaya ninna inaanu xaas ka maarmayn oorina aanay ninka maarmayn hadii ay markaa kala maarankaasi jiro halkiisu iska wardiila nabi aadam odaygaas islaanta uma baahdeen
aabaheen iyo hooyadeen marka waa duruufu xaaslaantu waa duruuf dhalinyaro Allah idin sakhireen waa duruuf idin haysa un xaaslaantu waxay yiraahdaan culimada ahkaamtu faqiir yaa la yiraahdaa faqiir الفقير من لا زوج له بينه فقير waxa la qof kan xaas lahayn baarkin ba male shantad ba male meel wax ku ritawa male haduu caaw awr qasho wasladun buu ka cunaya u dhaqaajiyay laakiin haduu xaas leeyahay imisa weel baa loo buuxinaya marka ku dadaala guurka inaynu fudaydino oo caqabadaha hor yaala ee habluhu hor dhigayaan ama wiilashu hor dhigayaan ama waalidku hor dhigaya laga qaado qaar khayr lana Allah idin sakhiro ama Allah ina wada sakhiro waaye taasina waa taa weey waa mulaaxado kale oo jira waayo insaanka asalkiis oo nabi aadama ooridaas u baahan meel kale lagama keenina isagii baa laga jeexay saasa marka noloshu ay ku bilaabantay guurkuna waa sunnada nolosha sunnada iyo habka noloshu u soconayso ay ku soconayso waa taranka khaliif taranku uu go'ay lahaa marka maqaasida iyo ujeedooyinka guurka ka mid tahay inay dadku tarmaan sidoo nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam taranka badiya waa la isu faanaya ambiyada ilaahay baa isu faanaya maalinta qiyaamaha jannada deeqda taala waa mid ballaaran la maqtuucati wala mamnuuca wa kula minha ragadan haythu shi'tuma meesha doonaysa waa cunitaanku waa waasac busaarad ma laha xad ma laha diiqad ma laha way waasac weey laakiin waxa la geedkan ha u dhawaanina waxay sheegaysaa hafalin bay ka horeysaa way xaraanta hadaad u dhawaato waxa sahlan inay naftiyo shaydaanku kugu riixaan wakiin nabigu tusaalaha bixinayo seeraha xiran xoolaha lama agdaajiyo way u dhacayaan marka waxyaabaha nafta aad ku kalifaysa waxa kamid ah inaad xumaantii xaraanta ku yara ag warwareegta tiraahdo ma anigu waan iska adaga waxba adkida iblis baa ka adkaan doone ha u dhawaan meelaha dabku ka baxaya dabka xaraantu meeshu ka baxayo waa qaawanaanta iyo meesha wax lagu cunay xaraanta lagu cuno iyo dalkeeda iyo dadkeeda ka duru si aad u nabad gasho waa ka wala taqrabu zina soomada zinada ha u dhawaanina halkan geedkan ha u dhawaanina sababtii wadadii baad haysaa kol hadaad xaraanta ku dhawaato uumigeeda baa kugu baxaya dabeetana nafti waa daciif way iska xijin marka dambe way kula soo kacaysa wala taqraba hadii shajara geedku muxuu ahaa quraanku ma cayin geedkaasi magacyaa ragga qaarkood u sheega magac mar hadaan quraanku u bixinin inagu ma magac bixinayna waa geed la calaamadiyo fatakuna min adh-dhalimin shaytaanki wuu ka guulaystayo wuu simbirraxiyay quraada qaarkood baa qira sugan akhriya fa azalahuma izaaladu waxa weeyaan uu durkiyo waa ka saaray meesha isku macnuun bay noqonayaan iyo uu simbirraxiyay simbirraxay noqonaysa qofku markuu macsiyada ku dhaco uu simbirraxday waxa taqaana qof soconayo simbirraxdayna inuu araxda ka jabo u dhowyahay waa halaag waxyaabaha lagu halaagsamay فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه موصول كاسوح التلمامة يلا إفهامي إلا وأسماء ذي مبهم كهيدة وحي وينا براره هي برواقدي أي هيستين أيو كسر حصار يسيدوا قصوا صارين آيات دي هرين سورة الأعراف أي آخرين وحول هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى ما كنت سياه سورة الله ما كنت سياه كيد مركا لعنه والله واريا ولقانا أذيك أي أسكيالنا على شجرة الخلد وملك لا يبلى واد واريسا إنسان كل أدب وجعلي لبضع إنه وح بدن هلا كنا واره وما كانوا بقرطويه هلا حول هلا نكرم أدب وجعلي وفضاضوا تمادين كمال قبينا أما ملح الدعاء وجعلي هاي وحوي محي أطال الله عمرك الله كله واري ميسي ده سانو جعلين الله نو كادا يوم جعلي الله كدايو أيو جعلي إنكاسي سيجار وجا ورهينيا الدواء الدين بما يود منايا مركز سيابها بني آدم كطبيعة عديس وحكوشرا كأبورا إنه وحنا يشكر واره لكن تاج النذر لقوا يا وينها رسوا رجني وحا هل كان كم وقنايا إنه أركينا وقلناها بطوب بعضكم لبعض عدو كان ذو ويس الرئيسة وعالم ككره وفي السماء رزقكم وما توعدون سماء وحسارا بولا هاي أرساق الدين وكأيمان يسأيت شرنا ذي الأيدين يبوهاي
naaruhuna dee way hooseeyaan iyaguna asfala saafiliin damiirka yaa lagula hadlayaa jamaca ihbituu bacdukum libacdin cadow waa ibliis waa aadam waa xaawa weerarka u horeeya ibliis baa haya oo wuxuu ku hayaa aadam xaawa iyo carruurtooda iyaguna cadow bay isu yihin oo adiga arko ilmo bani aadam dee way isku taagan yihin oo way isku foogan yihin mar haddii jannadaa la soo dhaafay xarbigaas iyo dagaalkaas inta adduunyada la rogayo uu soconaya cadaawaddaasaa soconaysa walakum fi lardi mustaqarun wamataacun ilaa xiin dhulka noloshan lagu nool yahay waa istiqraar bay leedahay dadku inta ay ku nool yihiin dhulka istiqraar bay leeyihin deganaansho mustaqar soo maha laakiin haddaynu meelaha kale kawaakibta ka baarbaarano sidanay gaaladu yidhaahdaan meel kaloo lagu noolaan karaa jira laguma noolaan karo istiqraar ma laha meelaha kale hawadana kuma noolaanaysid dad baa badaha dega sida China iyo marka dhulkii buuxsamay xaafadaha badda laga jeexay nagu dhul weyn iska xidhanaa Soomaa dad baa dhulkiiba ka dhamaado markaas ay badaha degan istiqraar ma leh inkastoo badda ay ka mid tahay dhulkii laakiin haddana way si kala fiican yihiin wamataacun ilaa xiinina waxay tilmaamaysaa noloshan adduunyada waa raaxo mataac alxayaati dunya waa raaxo kooban oo ayaam leh ilaa xiinin laguma waarayo haysilaawi yeeshumaha jannadii ana casoobi waa raaxo yar oo waqti xadidan leh ilaa xiinin ilaa inta aad dhimanayso wey marka halkaa waxaynu ka arkaynaa qisadan iyo faa'iidooyinka ay leedahay oo aad u badan halkaasay noogu joogi hada ma aquluhu astaghfirullah wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam